السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وادكم أتصنتها داوشة فيديوغن فضلا هذا القناة كعصبتها سبسكرايب صار لو ذاك أصحاب هذا فرينت هذا نهوس إنه قريب ما تسندين ورا ريال كسو وذا دواذا وحنشعل هاي ما أنت إن وحير إنه قالوا توبي جرا إنه قالها الله توبي جاسوا حكعب سنين قول درذا لكن أنت عن موضوع يقولين waxaan jecelahay inaan hadalkayga ku bilaabo sheeko yar oo kaftan ah. Hadda ka hor waxaa jiray wiil yar oo hooyadiis ka arkay madaxeeda oo timo cad soo yeelanaya. Madaxeeda soo yara cireysanaya. Marka wiil yar buu ahaa ma uusan aqoonin wax cirada ay tahay. Waxa timaha cad hooyadiis madaxiisa u keenay buu la yaabay. Maalin maalmaha ka mid ah isagoo su'aashii ku taagan tahay oo la yaaban hooyadiis waxa timaheeda uu la cadaanayo. با iskuulkooda waxa lagu qabtay iskuulku dhiganayay ba xaflad lagu qabtay khudbad baa la jeediyay macallimiinta khudbad bay jeediyeen marka waxa la siiyay cunug walbaba su'aal uu hooyadii ku weydiiyo wiilkii istaagay mikrofoonku qabsaday hooyadiisu wuxuu dhahay hooyo timahaaga maxaa cadeeyay buu dhahay hooyadii cabaar intay fikirtay waxay dhahday hooyo timahayga waxay la cadaadeen qayladan kugu qaylinayay rafaadka aan ka maray maalin walba yacda aan ku dhahay iyo dhibkaaga hooy timahayga la cadaadeen bay dhahday cabaar buu aamusay markaas wuxuu dhahay haddaan gartay ayay wax madaxeeda wada cadeeyo dhan walaalayaal maanta waxaan rabaa inaan wax yar ka iraahdo ha ka cabsanin guuldarrada in badan oo inaga mid ah ayaa maanta la nool guuldarrooyin sababtuna ma ahan inaysan guulaysan kareenin in guusha iyaga aan loogu talagelin inaysan horumar samayn kareenin inay dadka hormuud aysan u noqon karin sababtu waxa weeyaan waxay taagan yihiin barti ay shalay ku guuldareysteen barti ay imtixaanka uga dhaceen barti uu ganacsigoodii ku guuldareystay barti oo lacagtoodii ay ku luntay barti ay qofkii ay jeclaayeen uu uga dhaqaajiyay iyagoo dhan waxay aamineen ama sawirteen in isku day walbaba ay sameeyaan natiijadiisu ay noqonayso guuldarro waxay aamineen shay gacanta lama galaan ilaa waa ay ku gubtaan dadka noocaasi ah ka cabsada inay guuldareystaan waxa isaga qaldan laba arrimood inay guuldareystaan iyo inay ka cabsadaan guuldarrada tusaale markii aad wax isku daydo markii aad imtixaan gasho markii aad ganacsi furato markii aad wax un la imaato waxa ku furan laba wado midkood midda koowaad waxa ay tahay inaad guulaysato in dadkii ay tusaale aad u noqoto example ay ka dhigtaan in sheegaasi uu noqdo shay adiga lagugu imaado ama waxa kale markaa ku furan inaad ku guuldareysato laakiin markii aad ka cabsato inaad wax isku daydo markii aad ka cabsato inaad ganacsi furato markii aad ka cabsato inaad xiriir sameeyso albaabka kaliya ee ku furan waxa uu yahay guuldarro waxba isku dayi maysid waxbana ma qabsanaysid waxaana noqonaysaa qofka kaliya natiijada kaliya aad haysataa waxay noqonaysaa guuldarro waxaad noqonaysaa qof afkaar qalafsan maskaxdiisa ay ka guuxdo qof cabsi ay dadnimadiisa hoos u dhigto ay fulay ka dhigto waxaad isleedahay haddii aan ganacsi sameeyo armaan ku guuldareystaa haddii aan imtixaan galo armaan ku dhacaa haddii aan qofkan dareenkeyga u sheegto armu i aqbali waayaa waxaad noqonaysaa qof guuldareysta isagoo aanan waxba isku dayin waxaa maskaxdaada hareerinaya walbahaar iyo walwalku waxba kama qaban karo wax inagu dhici doona walwalku walaalayaal waxba kama bedeli karo waxa hadda inagu dhacaya sidoo kale wax uu ka qaban kara haba yaraatee ma jirto wixii la soo dhaafay si walba aad maanta u walwashaahi ganacsi ka lumay kuma soo laabanayo waa laga yaabaa inaad isbedel fiican sameeyso oo wixii shalay ku soo gal wax ka badan ay ku soo galaan laakiin gafki shalay kugu dhacay walwalkan maanta aad walwalaysaa waxba kama bedeli karayo الله سبحانه وتعالى وحو آيات قرآن وكدهي قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون مصيبة إنه ما دعدو امتحانكم ما دعنو ganacsigeena ma feelgareysmo ma noqono dad guul dareysta ilaa Allah subhanahu wa ta'ala ayaa inoo qoray
الله سبحانه وتعالى وحو آيات كله القرآن وكل يهي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أدون لما كلفو أدون امتحانكم مدعو قبر انت أورقادو علمي كمسود المدان إلا ووحي كإيمان كريان وواحد بريت أدكقو ليسان كرتو وحالغي يابا مانتا إناد امتحانك كدعدو وحالغي يابا مانتا إناد قول دريستو وحالغي يابا مانتا إناد انت أورقادو علمي كاسود المان لكن هنية جبن اسكو دايك لله إماو وحان هبا إناد هرؤغا سعون دونتو walwalku walaalayaal waxa kaliya uu inoo qaban karaa waxa ay tahay inuu inagala tago farxadda yarta aad maalinka haysato farxadda ay ilmahaagu ka dheehanayaan wajigaaga farxadda yarta ay waalidiintaadu wajigaaga ka dheehanayaan maxaa maanta ka xun in waalidkaaga hooyada ama aabaha ama saaxiibka ama cunugaaga aad ugu imaato guriga adigoo walwalsan uu wajigaaga ka garto walwal iyo walbahaar ku saaran deetana asaga uu murug uu bilaabo walwalku walaalayaal waxay dhahaan hal maalin oo aad walwashaa hal maalin oo aad walbahaartaa hal maalin oo aad fikirtaa ayaa ka tacab iyo tiiraanyo iyo ka rafaad badan hal maalin oo shaqo adag aad qabatid ka waran ninka walwalaa wuxuu ka dhib badan yahay uu ka rafaad badan yahay ka tacab badan yahay ka shaqo badan yahay ka daalid og badan yahay ninka ka shaqaynaya guryaha la dhisayo kaleeto qof ka waran subaxii intuu soo galo oo guri dhismo ku bilaabo ayaa ka rafaad yar baa lagu leeyahay ayaa ka tacab yar qof subaxii walwal ku bilaabo shaqadiisa cuntaday karinaysaa way walwalsan tahay wuu qabaysanayaa wuu walwalsan yahay dharkiisuu feereysanayaa wuu walwalsan yahay walwalku walaalayaal farxad unbuu inagala tagaa wax kale inooma qaban karayo dadku waa laba nooc ninne qorshuu degsadaa hore ayuu u socdaa wuuna ku dhaqaaqaa ninna qorshe ayuu degsadaa waxa kaliya midda labaad uu sameeyo waxay tahay wuxuu ka walwalaa qorshahaas hadduu ku dhaqaaqo inuu ku guul dareysto wuxuu ku leeyahay haddii aniga imtixaanka aan galo waan hubaa waan ku dhacayaa maadadan si fiican uma aqaani wuxuu ku leeyahay haddii aan qofkan dareenkeyga u cabiro waan hubaa wuu idiidayaa waan u jeedaa interest ima hayo inta aad heerkaas aad taagan tahay inta aad niyadaada haddaan isku dayo waan hubaa qofkan wuu idiidaa intaad leedahay ogow adne noloshaadii midda aad rajaynaysay riyadaadii kuma noolaan doontid ma rabtaa inaad heer gaadho ma doonaysaa inaad dadka facaaga ah ka horumarto ma doonaysaa inaad noqoto qof dadkoo dhan ay jecel yihiin ay tusaale u soo qaataan isaga tag walwalka isaga tag walbahaarka ee horay u dhaqaaq waxay dhahaan never trouble until trouble troubles you ha raadsanin walwalka adiga ha raadsanin dhibka ha noqonin qof ka walwala wax laga yaabo inuu dhaco ka waran maanta haddii aad ka walwalsan tahay shay suurtagal ah inuu dhaco shay laga yaabo inuu dhaco aysan boqolkiiba boqol laguma dhahay uu dhacayaa laakiin waa laga yaaba inuu dhaco haddaad ka walwalsan tahay waxaan rabaa inaan ku soo gebagabeeyo sheeko yar 2020 sanadkii la soo dhaafay baa waxaynu sheekaysanaynay wiil aynu saaxiibannahay waxaynu isu soo qaadnay habka fikirka xun murugada walbahaarka uu qofka noloshiisa hoos u dhigi karayo uu qofka ganacsigiisa hoos u dhigi karayo uu qofka nafsad ahaantiisa uu hoos u dhigi karayo uu qofka kalsoonida kala tegi karayo waan xasuustaa erey bay ugu dhahay wuxuu ii dhahay aniga walwalka hal shay ayaan ka faa'iidaa waxaan ku dhahay maxay tahay waxa aad ka faa'iido walwalka wuxuu dhahay waxaan ka faa'iidaa boqolkiiba 99.9 waxa aan ka walwalo maba dhacaan ka waran haddii maanta aan ku dhaho sheegani aad ka walwalsan tahay ka walbahaarsan tahay gaaska kugu riday ma dhici doono ama hadduu dhaco uma dhici doono sida ay maskaxdaadu u bunbuuninayso haddaba horay u dhaqaaq noqo qof horay u socda noqo qof horu socod leh biyuhu waxay ku wanaagsan yihiin biyaha wabiga iyo biyaha socda baa ka wanaagsan biyaha fadhiyo baa ka daahirsan marka ha noqonin qof ku mashquulsan meeshu shalay ku guuldareystay noqo qof u hanqaltaaga guusha shalay waxaad u guuldareysatay inaad guulaysato ayay ahayd maantana guusha waxay ku leedahay ha fadhiisanin bartaasay hore iigu soo soco هذا وبالله توفيق واتكم أتصنتها دعوة فيديوغن فضلا channel كان سبسكرايب صار لو داق أصحاب هذا فرين هذا هوس إنه وريب ما تسندين